waxaa sharaf ii ah inaan hortiina soo istaago anigoo ah hogaamiye jaaliyadeed ee waddankan Koonfur Afrika walibana aan si diiran u soo dhaweeyo wasiirka arrimaha dibadda ee waddankeena Soomaaliya mudane Abshir Cumar waxaan leeyahay mudane wasiir soo dhawaaw waxaad ku soo dhawaataa bulshada quruxda badan ee reer Koonfur Afrika ee u baahan dowladnimo waliba u baahan dowladda Soomaaliyeed waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa ama aan maaragtay aan soo dhaweynayaa walaalaha safaaradda Soomaaliyeed oo ugu horeeyo mudane sacaadatu safiir nabadoon Maxamed Cali Mire iyo bahda safaaradda si guud aygana waan u mahadcelinayaa maadaama ay noo qabanqaabiyeen shirkan degdega ama kulankan degdega oo aad u ahaa muhiim inaan caawa is aragno sidoo wasiirka hore u sheegaba sidoo kale culimada hogaamiyaasha jaaliyadda ee la mid ah aqoon-yahanada waxgaradka dhammaan reer Koonfur Afrika waan salaamayaa inta markaan salaanta iyo soo dhaweynta ugu gudbo aad bay caawa muhiim noogu tahay inaad suxud wareysano waad maqlayseen safiirkeena waxaa yimid wasaaradii dhameed ee xukuntay safaaraddeena baahiyeena iyo waxqabadkeena iyo waxaan hayno inaan la wadaagno ama la sheergaleyno aad ay muhiim noogu tahay markaan u soo noqdo nabadoonka hadalku yiri oo ahaa wixii cabashaa waa la sheegi karaa kulli aniga waxaan ahay gudoomiyaha jaaliyadda gobolka North West si qaasatan wax cabashaa uma qabo laakiin waxaan qabaa aan wata hambaliyeyn iyo maaragtay mahadcelin si gooni ah aniga safaaradda waxay igu qabatay service dairy waana rajeynayaa gobolada kale inay la wadaagaan halkaana way ku ammaan yihiin dadkeygana way ammaanaan inta badan waxaan rabaa waqtiga maadaama uu yar yahay inaan soo gabagabeeyo waxaan leeyahay wasiirka iyo staafkiisa la socda ku soo dhawaada jaaliyadda quruxda badan ee Koonfur Afrika waxaan rajeynayaa kulankan inuu soo noqon kii ugu horeeyay kii ugu dambeeyay sidoo sheegay waxaa jirto wax loogu talagalay hoos tagta wasaaradda arrimaha dibadda oo qusaysa jaaliyadaha waa muhiim in maaragtay aan helnaa waaxdaasna soo gaarto laba dhinacba dhinacna waxaan ahay dad horumar sameeyay ganacsi waaweyn ku jiro dhinacna waxaan ahay dhanka kareemka dadka ugu liito wadamada la midka marka waxaan jeclaan lahaa wasiirka inuu ka bilaabo waddankan Koonfur Afrika warkaygana intaasaan ku soo gabagaynay aad baa u mahadsantihiin mar kale mudan wasiir soo dhawaad